sida wada aragtaan hadda waxaan joognaa garoonka ku yaalo 11 Street gaar ahaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaad aragtaan dhalin u caboon in ay bilaabaan kubadda ayagoo markaasi ay rabaan inay ciyaaraan xilliyada habeenkii ay shaqadooda ka soo baxaan kuwa qaar haddii ay maalinlayaal ay leeyihiin shaqadooda habeenkii ka faa'iideysan karaan jaaniska haddii kuwa qaar ay leeyihiin shaqo habeenkii waxay ka faa'iideysan karaan jaanis maalintii ah waxaana stadiumkan hadda aad arkaysaan oo sidii Wembley oo kale garoonkiisu uu noo yahay dooga cagaaran ama saliga kubadda loo yaqaan ee fidsan aad u jeedaan oo laga furay xaafadda Islii gaar ahaan 11 Street ayaad waxa arkaysaan dhalinta hadda raba inay siday u arkaan iyo inayna la wadaagaan dareenkooda ee garoonka cusub loo furay maadaama aysan lahayn Islii garoon noocan oo kale taa aan ku bilaabo adigoo magacaaga iyo xaafadda aad ka timid sheegaya sidee u aragtaa dareenkaada sidee u aragtaa garoonkan cusub ee laga furay 11 Street walaalkay aad baad u mahadsan tahay marka koowaad magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Ahmed Cabdullaahi Dhuux waxaan ka imaaday xaafadda State Aid Street aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa garoonkan iyo haddaan nahay dadka dhalinyarada ah ee banooniga ciyaara waxa yeelay garoonkan oo kale waan u baahnayn xaafadda Islii meelo ka fog markay ay lahayd waxaan u aadi jirnay time baan nooga bixi jiray bas baan ku qaadan jirnay gaari raac baan ku bixin jirnay waqti baan nooga lumi jiray jam baan u geli jirnay wixii dhib ahaa oo meeshaas ka jiro dhan ilaahay maxadiis way soo dhawaatay hadda si fudud oo ixtiraam ku jiro baan waxaan uga soo tagaynaa guriyahayagii oo dariska ah waxaan imaanaynaa garoonka gudihiisa waxaan ku dhamaysanaynaa arrin kasto aan ka lahayn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii garoonkan furay isku hawlay qarashku ka galay waqtiga geliyay sida qaaligaana raba inay dadka dhalinyarada ah ee Soomaalida ah ee banooniga ciyaara ay uga qaadqaataan dadka Soomaalida ahna waxaan kula talinayaa garoonkooda iyo dadkooda inay soo dhaweyn qaali ah sameeyaan inay garoonka ka qayb qaataan si wanaag iyo akhlaaq ku jirto inay ciyaaraan inay garoonkii soo dhaweeyaan dadka iska leh in xushmad loo muujiyo garoonkii wax farxad geliya ummadda kuwa kale oo sameyn rabaa ay berri kaga daydaan annagana farxad inoo ah inay ahaato sida aan hadda u faraxsanahay garoonka gudihiisa baan joognaa uu dhamaaday waxaan rajaynaynaa waqti dhow in garoonka naloo furo iyadoo ay garoonka lagu ciyaarayo oo banooni la ciyaarayo oo dadkii wada faraxsan yihiin waqti kale inaan soo duubitaankan kiisa kale inaan kaga qayb galnaa ilaahay ka rajaynaya si fiican waxaan ugu soo dhaweynayaa saaxiibadaydana waan soo dhaweynayaa inay ra'yigooda sheegtaan bismillaahir rahmaanir rahiim aad ayaan ugu faraxsanahay garoonkan kaga dhisan meeshan waayo sportiga waa isku keenka bulshada iyo dhalinyarada waxaan rabnaa waan ku faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa nimankii meeshan qarashka galiyay oo garoonka noo dhisay aad ay ugu mahadsan annaguna waxa waaye wixii aan garab gali karno waan sameeynaa wax dhibaatana kama jiraan waa bulshadana isku timid waan ku faraxsanahay intaas يعني بتقولي سدس ناد. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جمعي وعد فتح عبد الغني دول كل يوم فرح سنة ما دام أن هاي إسلي وأنا سنين ما دام أن محلي نور سي جرون كان كل يوم نجاها قبتين بعيدا مقامنا جرون ماذا إنكستو هاين محلي جرون مرك غارق مرك روب كتان بيسك جلو لكن هذا صور وين يا جود عصب ونور سي جرون كاني وكل يوم حلي وبجنة أدو نكسن waxaan leeyahay fursad aad u wanaagsan oo dhalinyarada loo sameeyo waxaan leeyahay dadkii noo dhisay waa uga mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh mar kale waxaan soo dhaweynayaa safiirka waxaan aad ugu mahad celinayaa safiirka dhalinyarada qurba joogta Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo ambassador سن حريص له وحن آد وسود ويني أمباسطورة كسود ومركلة يا مركلة جرونكي أو جرونكي نلود سوي عصبانا أمباسطور كان عدوا كان سودو أمباسطورة أدي أدا وما سنتين دنان أصحابتا رير إسلي جار أهان نيروبي وحن إذن لنا هاي وحن إذن كسبنا بواجنتوس وناكسن أو أدنوصو بالنكتان وحن بهوين فيسبوك سوشيال ميديا دمان لو داقينا إنين لو السعودان garoonka cusub ee ku soo biiray xaafadda Islii gaar ahaan 11 Street waa mahadsantihiin. Have a nice day.